gudoomiyaha golaha deegaanka ahna duqa degmada Gabiley Maxamed Amiin Cumar Cabdi ayaa maanta guriga martida ee magaaladani qada sharaf ku maamusay ciyaartooyga baahiyaha gaarka qaba dhinaca dhagaha ee gobolka Awdal ka soo jeeda isla markaasina iyagoo matalaya qaranka Soomaaliland dalka Djibouti kaga qayb galay tartan ciyaartooyada baahiyaha gaarka qaba oo loo qabtay dalkaasi Djibouti halkaas oo ciyaartooyadani matalayay Soomaaliland ee baahiyaha gaarka qaba ee kubadda cagta ay soo qaadeen koobkaasi waxaana munaasabadan qada sharafta maayarka magaalada Gabiley ugu sameeyay guriga martida ka soo qayb galay barsaab ku-xigeenka gobolka Gabiley Cali Cabdi Cabdilaahi Cali Case qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka iyo sidoo kale mas'uuliyiin ka socday wasaaradda ciyaaraha iyo dhalinyarada gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta Soomaaliland ugu horeyn waxaa halkaasi ka hadlay isla markaasina faahfaahin ka bixiyay ciyaartooygana baahiyaha qaarka qaba kubadda cagtana ku soo dhaweeyay gobolka Gabiley duqa degmada Gabiley Maxamed Amiin Cumar Cabdi waxaana uu yiri sharaf bay noo tahay inaanu idinku qaabilo magaalada Gabiley oo maanta qada sharaf ku leedihiin aanu idinku maamuusano gobol ahaan idinku sharfano idinku qiimeynano runtii magaca aad qarankiina u soo hoyseen iyo dadaalka weyn ee sameyseen marka hore inaad Soomaaliland runtii horyaalkiinii aad qaadaan oo aad hormood u noqotaan aad iyo aad baan idinku hambalyeynaa inaad haddana dal jaarka intaad u baxdaan idinkoo magaca qarankiina huwan aad tartan ka qayb gashaan oo soo guulaysataan runtii waa magac labaad iyo guul labaad oo idinku hambalyeyno aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa cid kasta oo tacab idin gelisay hadday tahay macalinka iyo hadday tahay mas'uuliyiinta kale wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha iyo cid kasta oo qayb ka ahayd dadaalka weyn ee sameyseen dadaalka badankiisa idinka leh rag dhalinyara oo kamid ah dadka baahiyaha gaarka qaba gaar ahaan dhagaha oo muujiyay baahida ay qabaan inaanay ka joojinayn inay guulan gaadhaan oo ay qarankooda wax weey horyaal u noqon karaan runtii aad iyo aad baan idinku hambalyeynaa dareenkaasina runtii waa dareen farxadeed oo aad ku baraarujinaysaan dhalinyar fara badan oo rag iyo hablaba leh oo baahida ay qabaan darteed u haysta inay dadka gaabis oo aanay waxba soo kordhin karin runtii waa tusaale wanaagsan waad ku hambalyeynaa waad barbar taaganahay insha Allah taala waxaan rajaynaynaa inaad dadaalkaana halka ka sii wadaan qarankiinuna idinku wada baraarugi doono waxaan ku soo dhaweynayaa gudoomiyaha gobolka shacab ahaan mas'uuliyiin ahaan gobolkii oo dhan runtii annaga ka wakiila sidaas iyo si lamay farxad idinku soo dhaweynayaan sidoo kale waxa isaguna halkaas ka hadlay barsaab ku-xigeenka gobolka Gabiley Cali Cabdi Cabdilaahi Cali Case farxad weyn bay noo tahay in aynu maanta dhalinyartii baahiyaha gaarka xagga maqalka ee kubadda cagta ee gobolka Awdal oo runtii ahna hormoodka Soomaaliland isla markaana ciyaartii martiqaadkii ay ka heleen Djibouti ay ciyaarta u tageen ku soo guuleystay inaynu maanta Gabiley ku qaabilo farxad weyn iyo sharaf weyn bay noo tahay waa run ciyaaruhu isdhexgalkay kow ka yihiin inkasta oo labadeennan gobol siyaasadda lafteedana dee laguma kala tagana siyaasadda lafteeda iyo waxaan aaminsanahay in labadeennan gobol Gabiley iyo Awdal aynu gaar isku duruufnahay aynu iska xigno gobolada kale runtii marka aad iyo aad baan runtii ugu faraxsanahay maayarkana runtii waan martiqaadka u fidiyayna aad iyo aad baan isagana ugu mahadnaqaynaa sideedaba dhalinyarta baahiyaha gaarka ah xagga dhaguhu anigu waxaan aaminsanahay shakhsiyan inay yihiin dadka ugu intelligentsan xagga intelligence-ka dadka ugu sarreeyay inay yihiin baan anigu aaminsanahay tii ood kubaddii cagtana ku darteen dee ciidamo idinka badi mayso ciidamo idin gaari mayso marka aad iyo aad baan idinka iyo macallimiintiinaba idin boorinaynaa idin baariganaa idinku mahadnaqaynaa gobolada kalena anagu ka mid nahayna inaanu idinku dayanno oo aanu samayno tiimam sidaas runtii waanu dhiirigelin bay noo tahay isla goobtaasi waxa iyaguna ka hadlay isla markaasina u mahad celiyay maayarka magaalada Gabiley ee qada sharaftan ku maamusay ciyaartooyada baahiyaha qaarka qaba dhinaca dhagaha iyo mas'uuliyiin kale oo la socday sideedaba waa waxa xadadka baabi'iyo weeyaan runtii
laga yaabaa siyaasaddu inay dadka kala qoqobtay reernimadu dadka kala qoqobto laakiin sportigu xadba ma leh runtii taasaana sharaf ah taasna waxa maanta ay muujinaysaa waxa loo bartay xilliga gobolada la ciyaarayay in qofka gobolka ka soo jeeday ama mas'uulihii uu gobolkiisa hadduu qadaysiinayo hadduu cashaysiinayo hadduu wax siinayaba ay ku ekaado laakiin lama arag qof masalan gobolka Gabiley oo tusaale ahaan oo baran wax siin kara may jireen maanta se way taasi waxay muujinaysaa in maayarku ku dhiiraday in uu tuso sportigu qiimaha uu leeyahay ama ciyaaro waan ugu mahadnaqaynaa annaga sharaf bay noo tahay halkan maanta ku hakanno 2016 mar baan ku hakannay waagii gobolka uu qaaday gobolada runtii markaa wax badan oo siyaasaddu inaga kharibtay waxaan jecelahay inay sportigu inoo hagaajiyo insha Allah hadii la yiraahdo annaga sharaf bay noo tahay kulli hadalka badan waxaan siinaynaa martida annagu martidii baan nahay dadka martida aanu nahay insha Allah dhalinyartana waxay ahaayeen Soomaaliland baa koob loo qabtay dadka baahiyaha gaarka ah ee maqalka 3 gobol baa markaa diyaarsanaa Awdal iyo Maroodi Jeex iyo Burco insha Allah waxaan rajaynayaa gobolada kalena inay dadka baahiyahooga ay soo ururiyaan saddexdii kooxood baa tartan loo qabtay markaa gobolkii Awdal kooxdii ka socota qaad ku guuleystay tartankaas tii baa sababtay markaa bal in dibadda loo raadiyo bal si dhiirigelin loogu sameeyo Djibouti markaa ka helay marti sharaf sidii bay ku tageen runtii gamekiina way ku guuleysteen oo koob baa loo dhex dhigay hayd goolal badan way kaga soo badiyeen runtii oo nimankan waxay ahaayeen niman isla soo qabsaday muddo soo ciyaarayay marka insha Allah waxaan rajaynayaa in goboladoo dhanna marka laga wada helo koob kale oo gobolada dadka baahiyaha gaarka ah isna uu yimaado insha Allah bismillaahir rahmaanir rahiim buuri salaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ugu horeyn buuri ilaahay baa mahad iskale mar labaad maayirka degmada gobolka Gabiley iyo xubnaha kale dawladda iyo saaxiibadayada iyo dhalinyarta gobolka Gabiley sida quruxda badan leh noo soo dhaweeyeen aad baan ugu faraxsanahay waan mahad celinaa buuri anigu waxaan ahay kabtanka dadka baahiyaha gaarka ah qaba ee dhanka dhagaha ee gobolka Awdal buuri si qurux badan baad noo soo dhaweyseen wadna sharafteen waa markii ugu horeysay group sana kala uu ku soo dhawaaday buuri Gabiley dad yacni baahi gaar leh lagu soo dhaweeyay iyagoo awal waan sii dhaafi jirnay koobkii gobolada xataa markaan soo ciyaarnay waan sii dhaafnay laakiin maanta sharaf bay noo tahay buuri in lagu qaabilo lagu soo dhaweeyo gobolkii Gabiley insha Allah waxaan rajaynaynaa buuri in Soomaaliland goboladooda dhan ay sida noqdaan oo marka la isii dhaxmarayo la isii soo dhaweeyo oo la iscaawiyo oo gobolada la isku xiro insha Allah saasan rajaynaynaa buuri hadii la yiraahdo maayirkana aad baan ugu mahadnaqaynaa xubnaha kale ka soo qayb galay ciyaartooyda ilaad intaasi kadib waxaa iyaguna hadalka qaatay mas'uuliyiin ka socday wasaaradda ciyaaraha iyo dhalinyarada iyo gudoomiyaha xidhiidhka kubadda cagta waxayna yidhaahdeen ugu horeeya soo dhaweynta ay soo dhaweeyeen qoladii kooxdii baahiyaha gaarka ee ku soo guuleystay koobkii Djibouti ka dhacay maayirka degmada Gabiley Maxamed Amiin iyo barsaab ku-xigeenka gobolka Gabiley iyo maayir ku-xigeenka waxa kale oo ila socday aniga waftigeygan hogaaminayay kooxda gudoomiyaha kubadda cagta Jamhuuriyadda Soomaaliland Fuad waxaan intaas oo dhan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh runtii maanta waxa halkan nagu soo dhaweeyay anagoo hogaaminayna kooxdii ku guuleysatay koobkii ka dhacay Djibouti oo baahiyaha gaarka maayirka Gabiley oo runtii nin dadaal badana oo wax kasto qofka bilaadanki markuu dadaalayo wax kasto dadaalayo markuu arko isaguna qaybtiisu ka qaadanaya kooxda ku guuleysatay koobkii Djibouti madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland uu ku soo dhaweeyay qasriga madaxtooyada wasaaraddu ay halka ma taqaana dadaalka ugu mahadnaqay geynta halkaan u geynay Djibouti runtii mahadnaqa koowaad ee labaad ee maayirku halkan ugu qabtay qada sharaftaasi maayir aad baad ugu mahadsan tahay soo dhaweynta halkaad ku soo dhaweysay kooxdan aanu hogaaminayno runtii iyaguna aad bay kaaga mahadnaqayaan ifii aakhirana waad ku liimaamni doontaa kumana iloobi doonaan qadada halkaad ugu samaysay annaguna waxaanu dareemanaa maayirku shaqooyinka uu nala qabanayo uu nala garab taagan yahay haddana wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha dadaal badan oo horeba sidii ciyaarihii gobolada uu ka qaatay tii unbuuna sii wadaa waxaan u mahadnaqayaa mas-uuliyiinta heer degmo iyo heer gobol ee gobolka Gabiley runtii gobollo badan oo Soomaaliland ayaa runtii jeclaa inay tiimkan soo dhaweeyaan maanta se waxa ay sii mareen oo nasiib u yeeshay gobolkii
cagaarnaa dadka inta badan gobolka cagaaran buu yaqaan laakiin maanta waxaan leeyahay waa gobolkii gobonimada waxaynu u leenahay gobollo badan casuumadii ay qaabili lahaayeen ayay gobolkani runtii u duba iyaku runtii qabteen iyakoo maanta matalaya gobollada dalka oo dhan maadaama marinkii awdal ay tahay gabiley sidaa daraaddeedna badhasaabka iyo meeyarkaba runtii waxay wakiil ka yihiin dalka oo dhan iyakoo labadan gobol runtii taariikh gaari ka dhaxayso balse maanta runtii gobollada intii kalena marti ama qada sharaftani runtii way la qabaan runtii mar labaad iyo mar saddexaad waxaan u mahadnaqayaa shacabweynaha reer gabiley oo runtii iyakuna dhalinyaradan baahiyaha gaar kale jecel runtii qaba aan iraahdo aada u jecel oo rabay inay soo dhoweeyaan wakhtigoo gaaban awgeed runtii way gudbayaan way jeclaayeen inay gobolkan sii joogaan anoo kolley ku hadlaya dee magacii xidhiidhka kubadda cagta ee dalka oo dhan runtii waanu idinka guddoonnay anigoo u hadlaya kooxdan kubadda cagta ee baahiyaha gaar kale runtii waanu guddoonnay sidoo kale waxaan leeyahay de sidii badhasaab kuba yiri maamulka heer gobol de idinkana waxaa idin yaalla insha allah sidii aad u samayn lahaydeen kooxdan oo kale waxaa dhowaan dib loo bilaabi doonaa ciyaarahan oo kale oo mar labaad dalkao dhan ay isugu iman doonaan caasimadda ciyaaraha baahiyaha gaar kale oo markii hore dad gobollo kooban ay ka soo qayb galeen maadaama gobolkani in badan uu ku horumaray horumarka oo runtii caan ku yahay ilaahay khayr ha siiya meeyarkiisa oo runtii meeyarada dalka ugu horeeya ah oo runtii dee gobol dalkao dhan laga warhayo runtii intaana waxaanu rajaynaynaa inuu ku dari doono waxaan aada u salaamayaa dhalinyarada sportska gaar ahaan kooxaha gabiley runtii oo xidhiidhka qayb ka ah markii ugu horreeyey xidhiidhkan la doortayna codeeyey